aniga iyo isaga eebba ii dooray isaga aniga ka hor intaanan dhalan ma noolaan karo isaga la'aantii wuxuu ilaaliyaa dhammaan jirkayga oo dhan isagu waa noloshayda wuxuu i siiyaa iftiinka noloshayda wuxuu iga ilaaliyaa fallaadhaha cadceedda iyo qabowga barafka wuxuu i siiyaa diirimaad iyo goob nabadeed isagu waa hadafka iyo riyada noloshayda wuxuu jecel yahay inaan la noolaado ilaa qiyaamaha isagu wuxuu jecel yahay inay gabadh kasta oo muslimada ay xidhato iguma aha ciqaab waa sharafta dhabta ah iyo xorriyadda hadalka waa jidka aan dadka ugu sheegayo inaan ahay gabadh islaam ah wuxuu iga hor joogsadaa inay ilxumi i aragto isagu waa awoodda naftayda markaan isaga la joogo waxaan dareemaa inaan haysto xorriyadda noloshayda iyo kalsoonida nafta isagu waa indhahan wax ku arko dhagahan wax ku maqlo afkan ku hadlo carabkan wax ku dhadhamiyo gacmahan wax ku qaado cagahan ku socdo markaan isaga la joogo cidi ima dhibi karto xataa quraanjo isaga la'aantii noloshu waa waxba isagu waa garabyada aan ku duulo marka aan xabaasho galo waxaan jeclaan lahaa inaan agtayda ku arko hadafkiisu waa inuu iqiimeeyo tallaabo kasta oo aan u qaadayo waddada toosan aad baan ugu faanayaa isaga waana inaan isaga la joogaa si aan u aqoonsado inaan ahay gabadh muslim ah wuxuu badanaaba igu yidhaahdaa bulshadaada waxaad ku beddeli kartaa saamayntaada togan waxaad awood u leedahay inaad dadkaaga iyo waddankaaga aad horumariso wuxuu iga dhigay inaan noqdo gabadha ugu wanaagsan walaasha ugu wanaagsan xaaska ugu wanaagsan shaqaalaha ugu wanaagsan dhakhtarka ugu wanaagsan maamulaha ugu wanaagsan xisaabiyaha ugu wanaagsan wuxuu si qoto dheer u ogyahay inaan leeyahay sharaf qiime iyo tixgelin wuxuu ogyahay inaan ahay dahab iyo dheeman wuxuu ogyahay inaan ahay daacad cidna aanan xadi karin ama aanan khiyaami karin wuxuu ku nool yahay dhammaan xiisadadayda wuxuu u socdaalaa meel kastoon u socdaalay wuxuu fadhiistaa meel kastoon fadhiistay wuxuu istaagaa meel kastoon istaagay waxaan ku dhashay hadiyad gaar ah taasi waa islaamka qof kasta oon la kulmay wax kasta igu wanaagsan waxay ka hadashaa oo ay xasuusisaa ilaahay ilbiriqsi kasta daqiiqad kasta saacad kasta maalin kasta toddobaad kasta bil kasta sanad iyo sannado kasta waxaan u taaganahay islaamka waxaanan ahay safiirka islaamka ninkan maaha aabbahay walaalkay ninkayga jaarkayga dadkaad wada shaqayno ardayda aan isku fasalka nahay ardaygayga barahayga shaqaalahayga ama qof kale balse ninkani waa xijaabka aan xidhanahay hadda waxaan dareemayaa jacaylkiisa mana ogoli inaan iska bixiyo xijaabkayga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa walaashiin faadmo buuni